maxkamadda sare ee Kibera ee magaalada Nairobi ayaa aaba jira 36 sano jir ah ku xukuntay xabsi daayin ah kadib markii lagu helay inuu kufsaday gabadhiisa oo jirtay 13 sano jir. garsoore Zainab Abdul oo ah garsooraha maxkamadda sare ee Kibera ayaa sidoo kale ku dartay 5 sano oo kale oo xabsi ah kadib markii la cadeeyay in ninka uu si arxan darro ah ugu weeraray gabadhiisa isagoo weerarka gabadhiisa u adeegsaday mindi ama toorey isla markaana uu dhagaha dhaawacyo xun ka gaarsiiyay. intii lagu guda jiray dhageysiga dacwadda, garsoore Zainab ayaa sheegtay in xeer ilaalintu si buuxda u cadeysay eeda iyadoo la adeegsaday marqaatiyo iyo cadeemo caafimaad taasoo la waafajiyay hadalkii gabadha yar. garsooraha ayaa ku tilmaamtay falkan ninkan mid muujinayo bani'aadanimo la'aan dhammaystiran, iyadoo sheegtay in kufsi uu waalid u geysto ilmihiisa uu yahay khiyaano ka dhan ah mas'uuliyadda waalidnimo taasoo mudan ciqaabta ugu sarreysa ee sharciga uu ogol yahay. maxkamaddu waxay maqashay in gabadha markii laga soo badbaadiyay guriga la geeyay xarun daryeel oo carruurta, halkaas oo ay kalkaaliso bulsho u sheegtay in aabaheeda si joogta u kufsan jiray. garsoore Zainab ayaa ammaan u jeedisay xeer ilaalinta iyadoo tilmaamtay in ay si qoto dheer u baaraan kiiskan isla markaana ay soo bandhigaan cadeemo xooggan oo kale. 5 sano oo dheeraad ah oo xabsi ah waxa ay sugnaan doontaa inta ninka uu dhamaysanayo xukunka xabsiga daayinka. sidaasi waxaa xukunkeeda ku soo gabagabaysay garsoore Zainab Abdul oo ah garsooraha maxkamadda sare ee Kibera.